Wargeysyo badan oo reer galbeedka ah oo soo xiganaya ilo ka soo jeeda Japan iyo Shiinaha ayaa soo tebiyay warar xan ah oo sheegaya in hogaamiyaha sare ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dhintay qalliin lagu sameeyay kadib xanuunka ka dhacay dhanka wadnaha. Agaasime ku-xigeenka telefishinka satellite-ka ee HKSTV Hong Kong oo ah shabakad warbaahineed oo ka howlgasha magaalada Hong Kong ayaa sheegtay in Kim uu dhintay. Shabakadaha isgaarsiinta iyo social media ay ku leedahay dalka Shiinaha ayaa si weyn looga wadaagaya oo loogu falanqeynaya dhimashada hogaamiyaha Kim Jong Un, sida lagu sheegay warbixinta lagu daabacay shabakada International Business Times. Sidoo kale, warbixino laga helay warbaahinta Beijing ayaa xaqiijinaya dhimashada madaxweynihii Waqooyiga Kuuriya, waxaana ku waramaysaa in lagu guuldareystay qalliinkii labaad ee lagaga sameeyay dhanka wadnaha, isagoo bishan horaanteedii qalliin hore lagaga sameeyay wadnaha. Si kastaba ha ahaatee, dhimashada hogaamiyahan ayaan weli xaqiijin dhab ah laga sheegin, iyada oo dalka uu madaxweynaha ka yahay ee Waqooyiga Kuuriya aanay ka hadal amaba xaqiijin dhimashada madaxweynahoodii. Wixii war ah ee dambe ee kasoo kordha xaaladda madaxweynaha lagu muransan yahay dhimashadiisa, halkan kala soco haddii Allah awood leh ogolaado.